ورقرال أو كصوبهاي حفيز كرئيس الوزراء حكومة الفدرال كاه الصومالية مدن حسن علي خيره أيا لغو مقاعابي قدق بدبادينتا يوسو علينتا حنتي ذي قرنكا ورقد كصوبهاي حفيز كرئيس الوزراء أيا أقرنيت سدتان كو وزيرك وحبرشدا يو تعلينتا ساري كو وزيرك ماليدا كو وزيرك دكدها يو قاديدك بدا كو وزيرك أمنيك قدها كو وزيرك قاشانديقا كو قدوميها قبلك بنادر أهنا دوقا مقالة مقدشو كو هانتي دورها قوت اي دولدا كو هير إلاليها قوت اي قرانكا اوك ضمان حبناها قولها وزيرة حكومة الصوماليا اوك مدحوينها جمهورية الفدرالك اي صوماليا وجيدو مقاعابت قدق بدبادينتا يوسو علينتا هانتي دا قرانكا يدو لغا انبقاض يو قضبك السغالي سغاشنات حرفها ا با ا فا يو اي دستورك كميل غاركا iyo qodobka boqolaad xarfihiisa a iyo da ee dastuurka ku meel gaarka ah isla markaana la tixraacayo awaamirtii iyo talooyinkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya horay uu u bixiyay kuna saabsanaa in la dhowro lana badbaadiyo hantida qaranka ee ay lahayd dawladii dhexe ee Soomaaliya ka hor 1991 ayaa waxa la magacaabay guddiga badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka oo kala ah كو مدن عبد الله قوضة بره وزيرك وحبرشدة يو تعلينتا ساري قدوميه waxaanu xubinka xubnahan hoos ku qoran ee soo socda labo mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele wasiirka maaliyadda saddex Marwo Maryan Awees Jaama wasiirka dekedaha afar mudane Maxamed Abukur Islaw shan mudane Cabdi Aadan Xuusow lix mudane Cabdi Maxamed Sabriye toddoba mudane Saalax Axmed Jaama sideed mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame sagaal mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso gudoomiyaha gobolka Banaadir toban mudane Maxamed Maxamuud Cali طبعا مدن أحمد علي داهر حير الاليها قوت اي قرنكا سو علينتا هانتيدا قرنكا وإن لغو باللابا ميلاها لو باهن يهي سيدو قد نقسياها بدن si looga fuliyo adeega bulshada ama ay dawladda u doonayso in ay ku shaqeyso hadii se arrinkaasi wax saameyn ah uu ku yeelanayo dadweynaha waa in loo helaa xal kale ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya sida awgeed ayaa waxa la farayaa wasaaradaha xukuumadda hay'adaha hoos taga iyo xafiisyada madaxa banaan ee dastuuriga ah in la joojiyay bixinta iyo iibinta dhulka dawladda lama oran karo waa ka maarana dhul dawladeed hay'adii ka maarantana waa in ay keenta golaha wasiirada lama kireyn karo dhul dawladeed hadii aan loo marin habraaca sharciga ah lamana wareejin karo gaadiid ay leedahay ee dawladda Soomaaliya heshiis kasta waa in xafiiska garyaqaanka guud uu ka tala bixiyaa kadibna la keenaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan sida ku cad xeer ra'iisul wasaare la ara eber 47 xilka iyo waajibaadka gudiga كو سوتر كوبيدا هانتيدا وزارadaha hay'adaha hoos yimaada iyo xafiisyada madax banaan ee dastuuriga ah ee ay leeyihiin labo soo gudbinta xogta soo celinta dhulka iyo gaadiidka dawladda sida sharci darada ah ay ugu manfaacadaan shakhsiyaadka gaarka ah saddex soo gudbin ra'iisul wasaaraha warbixinta faftiran waqtiga ku haboon Abdu Wahab Aadan Abdurrahmaan telefishinka caalamiga ah Bulsho TV Muqdisho